waalid markaan ka hadlayno depressionka hadda dhalinyaradu ay la tacaalayso intooda badan laba shay waa muhiim inaan ogaano. kow, nolosha qeexideeda inaan fahanno. noloshu waa imtixaan, dhinac walba imtixaanka kaaga iman karo. ilaahay baa yidhi wanabluukum bishari waalkhayri fitna. sidaa darteed imtixaanka nooca uu yahay inaguma dooranayno, xilliga uu inagu imanayo inaguma dooranayno, meesha uu inooga imanayana inaguma dooranayno. caruurtaa lagaa qaadi karaa, xaaskaa lagaa qaadi karaa, odaygaa lagaa qaadi karaa, hantidaa lumi karta, ganacsigaagaa lumi kara, adigaa cabsi lagugu imtixaami karaa. oo ilaahay baa yidhi walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuci wanaqsi min alamwaali walanfusi walthamaraati wabashir asaabiriin. taas waa qodobka koowaad ah inaan ogaano. qodobka labaad waa maxay? xanuunkaa kugu dhacay iyo caqabadaa kugu dhacday iyo musiibadaa kugu dhacday baa waxaa laga yaabaa dhibka kaaga yimaada iyo saamayntii kugu yeelato inaadan xamili karin adigu. sidaa darteed depression qofku markuu ku dhaco wiik ma aha, qof daciifa ma aha, ee waa qof xanuun ka tan badan la tacaalaya. waxaa loo baahan yahay marka wixii uu kaga bixi lahaa inagu inaan u diyaarino family support, qofkan laga warhayn karo, lala sheekaysan, xaaladiisa la ogaan, moralka loo qaadi karo. walidaalika rasuulku sal allahu alay wasalam madiine markuu yimid dadkii soo baxay muxuu ku yidhi ayuha annaas afshu salaam wa tudcimu aطacaam wasilu larxaam. wuxuu abuuray rasuulku sal allahu alayh wasalam laba shay oo muhiima oo ah community connection, dadku inay sheekaystaan, isku xidhnaadaan, iska warhayaan, iyo family conversation, qoyska iyo ehelkuna inay iska warhayaan. u fiirso, bulshadiibu rasuulku sal allahu alay wasalam wuxuu ku yidhi soo baxday wada sheekaysta, wada hadla, isa salaama, iska warhaya, qoyskana ka warhayaa layidhi. qofka tabarta daran ee gaajaysanna quudiyaa layidhi. seed ku ogaani qof gaajaysan quudintii? waa inaad la sheekaysato, waa inaad ogaato. idan rasuulku sal allahu caleyh wasalam wuxuu inoo sheegay ummaddu inay iska warhayso, isa salaanto, miskiinka la quudiyo, dadka ma aragtay qaxootiga alla daryeelo, caruurta alloo naxariiso, qofka weyn la ixtiraamo, ehelkiina laga warhayo. ummaddu markay saa isugu xidhan tahay, qofka xanuunka dhimirka la tacaalaya wuxuu heli karaa practical tools, waxyaaba uu kaga bixi karo. allahna garansiiyo. fadlan muuqaaladan waalid legasi kala socda. wasalaamu calaykum waraxmat ullah.